gobolkan waxaa la yidhahdaa Shrilang Pat run ahaantii dad aad u fara badan ayaa ku nool boqolaal sano ayay jirtaa marba wuxuu ka talin jiray Sultan Tipu nin la yiraahdo waxaa jiri jiray dhaqan xeer sharci intaba balse markaas kadib Tipu markuu geeriyooday nin waxaa soo baxay Hari la yiraahdo iyo weliba nin Keesho la yiraahdo ayaga ayaa maalin walbo meesha fitna ka abuuri jireen gobolkan wuxuu leeyahay saldhig maxkamad talis intaba balse waxaasoo dhan waxay hoos imaadaan Hari iyo Keesho ayaga ayaa dadka waxay doonaan ka samaystaa doqon yahow lacagta aan kuu sheegay haddii aad qaadan lahayd maanta horumar ayaad ku fadhin lahayd laakiin adiga hadda doqonkaas ayaad warkiisa qaadatay adaa doqon oo damiir lahayn ee war yacni janaalka waxaan u furtay shacabkeyga inaa ugu daneeyo kanaalkaas anigu waan burburin karaa ma og tahay midaas maxaa burburi karti mala warya doqon aan damiir lahaynaad tahay warya daacadda oo noocaadoo kale ah mar walba waxay ku haminayaan inuu qof imaanayo xaqooda oo u dhicinayo taas waa riyo adiga aad ku riyootay waxaa kaloo kuu sii dheer doqon adiga mar walba waxaa jeceshaa in taariikhda ay ku xusto laakiin taariikhda kuma xusayso doqonnimo ayaad u dhimanaysaa adiga ugu wadaba dadka waxay yidhaahdeen qofka markuu xanuunsado digtoor ayaa la geeyaa qofkii kibirkiisa batana Hari ayaa loo geeyaa kanoo kalena dawadiisa aniga ayaa haayo wiilkayga kanoo kale looma baahna wakhtigaaga inaad ku lumisid ee hooshaada cab ayaan ku leeyahay cab hoosha walaalkay aawe war waa la gacan galay weligeyga waxaan fiirsan jiray filmaanta weliba waxaan ka arki jiray hal qof oo 10 nin ay garaacayaan balse maanta indhahayga ayaan ku arkayaa yarkaaga tooraa iska dhigay adiga kuuma soconay meesha ka carara ayaan ku dhihi lahaa ninkan intaad u gudbin aniga ayaa kuu dhammaynaayo maxaad dhammayn kartaa adaaba 3 kiilo ee waryahoy maxaa naga qaadaysa intaan kugu dhammayna hadda xaalkaadaan ku dilina waana arki doontaa ma ogtahay waraabaha kan aamusan iyo kan qaylinaya kan aamusan inuu khatar yahay ninkaad ku tilmaantay inuu 3 keli yahay ayaa wuxuu soo dhamay kartayga buuggiisoo dhan raganimo ma ahan 10 qofood inaad hal qof ku dishaan laakiin raganimada waxay ku jirtaa hal qof markuu 10 qof oo dilo keligiisa weliba fulayga sidiisa buu ulal badan yahay laakiin usha aad qaadanaysa waa inay noqotaa mid waxtar leh oo weliba nin ruuxii kale lala soo aaday gabadheeda aniga meesha mar walba waa jeclaa inaan ku duceysto laakiin nasiib waan ogaa markii aabbaha la bedel ayaa nasiib u hela ka waran hee waxaa la dhahaa meeshaan qofka ku duceysto ducada waa laga aqbalaa mar run baana ii sheeg biyo waa ku
tuuga kembiyaa war naga tag baan kula hataa hadinta doorba ormonyo shaydaankan asaga maba dhimanayo miya marwalba anaga waxaan barinaa in uu dhinto muuqata shaydaankan maxaa ku dhacay gabdhahan biyo biisi tartiib wacdo halo keeshu yaaqi qofkan waa dhaawac wuxuuna yaalaa bartamaha magaalada meesha laga dugaamaysto oon ku barya inta u imaataan isbitaal geeye aad ayuu u dhaawacan yahay marka dhaqso ugu imaada idinka maxaa kugu dhacay wiilkayga walaalkaa wuu fiican yahay maxaa way dhiig kolkaa ka muuqdo dadkii walaalkii soo garaacay ayaan anigana gacmaha ka soo gooyey walaal horta aniga nafsadeeda wiil ayaa badbaadiyey wiilka makuu i badbaadiyeyne gabar ayaa biyaha afka igu qabtay gabadhaasaan doonayaa baaritaanka markuu dhammaado kadib 2 maalmood hoostaada ayaan keenaya gabadhaas waxaan rabaa inaan guursado aniga wadna xanuun daawo waa loo heli karaa wiilkayga jiro kale haddii ay tahay xitaa daawo waa loo heli karaa macno ma lahan laakiin adigoo xaas leh inaan naa kala guursanin haltaada maxaad ugu jawaabaysaa ii sheeg hadhow adiga ayay su-aalku weydiinaysaa waatanaa maxaad leedahay markaas hadeer naag inaan guursado aniga yaa dacwo ii dood ka qabo gabadha walaalkay uu ku waashtay sida ugu dhaqsiya badan waa inaad ku keentaan aniga gabadha xaggeen ka raadinaa ciwaankeeda maba naqaanay war gabadha gaashaallaha baadale baa la orinaya madane muxuu yahay hadduu dhalayna walaalkay ayaa jeclaaday runtii gabar waxaa la guursadaa marka adiga dhibaato ay ku haysto gabadha kuu naxariisato gabadhaana waa ay kuu naxariistay adiga inaad guursadna waad ku qasban tahay istaag guduudkaas sidan sooma jeedid sooma jeedid dadkao dhan meesha way ka carareen ninkan weli wuu taagan yahay waa nin sharci yaqaan oo inaad sawirtaa facebooka rabaa inaad dhigtano mudane runtii markii ku soo laabaata shaqada aniga aad iyo aadaan uga farxi waana mahadsan tahay yaqay adiga mudan mudane halkoo arrin kalaa jirtay ii sheeg runtii mudan aan howlgab markay noqdo dadaa garab iigu sii shaqada inaan ku soo laabto dadkaas inaa ii ogaatidaan u baahanay intaas taliye walaal harii kunkooy ku doonos walaal hari ah meeshan ma aha ee xafiiska igu sugo isla sheekaya waaye midin hari ninka magaaladan ugu khatarsan waaye haddis inta imaadan weynas oo imaadee waxaan ku dhiraa iska qaabil waan ku salaamay mudane hari ninka la dhahaayo si wanaagsan ayuu ii ammaanay midaasna waa midaan aniga muteystay fadhiiso wiilkayga fadhiiso waayahay waxay ila tahay meel qaldan inaad imaadeen waa maxay waxaad la imaadeen ninkaan aad u jeedid adeerkiis ayaan ahay hari ayaa la dhahaa walaalkiis ka yar ayaa jira keeshu ayaa la dhahaa aad ayuu u qurux badan yahay yaraantiis wuxuu jeclaa bisooladda inuu ku ciyaar hadda markii uu weynaaday bisooladii ayuuba ku tagayba gabadhaada ayuu jeclaaday waa inaan ku darnaa marka burcadnimadiisa ku faanaya lagama yaabo gabadheedii inaan ku daro waxaan ahay boolis ahaw ama wasiir ahaw waxaad ogaataa mar haddii gacanteena ay qoortaada gaarto sirwaalka aad ku kaadinaysaa taariikhda ayaana qoraysa midaas walaalkay gabadhaada mar la kulansii haddii uu dhididka keeni waaye isagaaba nin rag ahayn mar dambe kelmadaas afkaga dib ka soo baxday uu xabad ayaan afkaga gelinaya wariya bistooladda adiga aad sheegaysid annagaba waan wadanaa ogow haddii ay taada kugu yaraatana annaga naga soo doono tanna adiga iska xaraysa ayaan ku leenahay markood qofka aniga wanaaga ugu imaana haddii uu diidana burcadnimadeen ayaan tusnaa taasna aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso gaashaalla adiga si fiican ayaad kaartada u jeli taqaanaa gabadhaada waad diidi kartaa micno ma lahan laakiin hadda hurdadiinna way wanaagsan tahay cuntadana si wanaagsan ayaad u cuntiin hadda waxba idinkama hadlaysna laakiin mid ogow gabadhaada haddii aad isku dayday in aad diiddo waxaa hubanti ah taariikhdaadoo dhan inaad u baasbaxayso dhegaysta
dan walbood iga leedihiin xafiiska ayaad igugu imaanaysaan gurigayga dadku ma qaabilo waa markii ugu horraysood qalad gashay aan waadin cafiyey ee ka taga guriga si fudud ayaa waxaa ku tidhi halkan ka taga anaga ma baxeeno ilaa aan danteenna ka gaarno hadda wiilkeenna wuxuu raba adiga gabadhaasi sharafle inuu ku guursado haddii aad diidid waxaad ogaataa gabadhaada 7 ayuu la gelayaa kadib ayaa la guursanayaa taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso arrintaa waxaa naga xigtay inta walaalkay isbitaalka uu ka soo baxaayo mar hadduu walaalkay isbitaal ka soo baxo naag la'aan guriga ma tegaayo middaasna waa inaad maanka ku haysaa walaal hari dumaashidaa waa taasaa haye dumaashida mustaqbalka shoobing waana si fiican u soo adeegataa arooska ma rabna annaga inaan daahino waan dadejinaynaa nabad wiilkayga nabad haa walaalkayga gabar qurux badan ayaa dooratay adiga midii horena inaad disho waadba ku saxneedba nasiibkaaga waad ku guulaysata ayaan ku dhahay kuu gashay yaaway ninka aniga ninka markuu dhimiro adiga biyaashiilis kaa saara inuu ku guursado kabaranay ka sheekay waa maxay waxaan dhacayana waa 3 awood boolis biskoolad iyo tuugo dadkaana waxay rabaan inay ku guursadaan aabbahana midaas ayuu diidan yahay oo dantiisa ma yaqaana asaga dadkaana afkeena la gala ma ahayn muxuu la galayaana marwo dadkan awjeed naxariis ma ninkan hadalkiisa waa ku saxan yahay maxaa yeelay gabarteeda inay wateen seerawan ka yeeteen bacdeena waa dilayna ku dhahay naxariis ma sameeyeen qortay ka jarayna dadkan awjeed waliba unka boolis waa iska nahay iyan boolis naayaan ku dhahay khalada ay galayaan bacdeen unka meesha loo inaan raali geli waa u tagayna iigan raali geliyayna tasbidaadan nimay maanta inay suulat wax lagu ogaadaa markay badato xumaanna cid wax noogu qaadi karta ma laha sababtaas saman ayaan wadanaa annaga mideeda kaleeta ayaga wax walba ha sameeyaano laakiin guusha annaga ayay noo dambaynaysaa in iidaada khayr u sheeg gabadhaydii gabdhaha run ahaantii hindii ku nool caadi ma ahanan ku dhahay weliba waxay u dhaqmayaan gabdhaha yurubka imaada camal ma waxay kula tahay hindii inay dambayso hindii way horumarsan tahay way imaadaan u malaynaa aniga nasiib badnayaa saakii iga soo horbaxa nasiibkayga aad ayuu wanaagsan yahay gabadhan aad u qurxan ayaan arkay waa inaan ku dhegsadaa marka waa maasan tahay ku dhahay kale walaalkay shiya qofta aruusaya warkaan haddii la maqlin waa lagu ka jiya hataa baa kuu sheegay digniina kuu sheegay qofkan qofka wanaagsan waa inaad daraysataan qoftan waxaa gursino keeshuu baay ee keeshuu baay isku halay keeshuu muxuu yahay hal mar waa la kulma ayay ku ilaabaysaa fishaali cabduurka jeclaad soo midkaas mahana aha هذا عم بتفكر أريا لا وكفسي ذلك وكليات هذا نرجع كلام بينكم هذا أبيه وياك رجلنا وين نقطة هذا يعجوز هذا أريا أقدم بهداتها بتتوجد في كرك السقوط طوال كسبيها كالي ما حكى قلنا قفكوا هاي كودي مثلا نامو على المكان قفت أد بيقول بنت وريا هوي نكاس ناركينو قفتان وسجل علو كبني أفارينك بح أبيك يسوق شيء يسحقي وحكيها أنا وسيد حجرة قبل هو إنه لو تنجرة ما كفى القاضي كرو بس أنا وحنا هني لما تنجرة قبلنا إنه كلنا وادتك الله تلقى إني لو ذا كان نلصة أنا وحنا بالقاضي كلا قبلنا نلصة هذا المستقبل كلا إن عم بسكر أنا نلصة وحنا معنا لنا متخنا مركز جهل كاجا نفترض هلس أدو جلسو أنا كده واحد ديار ونفترض إن أنا هلس أجليو لب والبو قتال والبو قبلنا نفترض ديار وحنا هنا أقله nolosha waxay macaan leedahay mataqaana markaad naftaada jecelkaad halis u geliso jecelkii ku qaadan maaha weligeed mid ay ilaabayso meel walba guurka ayaa laga sheegoyaa adiga nintaygu maxaad u guursanaysaana aniga amarkayga wuu ku dhacoyaa marka maxaa iskaga diidi waysana aniga maa diidi karahe qof walba mustaqbalkiisa asaga ayaa go'aan ka gaari kara adiga markana iska diiday ahayd aabbahaaba gaashaale tuugada maxaa qorta kuu geliyey taas wuxuu ogta adigoo dil toogasha lagugu xukuma adigaaba ogol iska dhima saaxiib mararka qaar waxaa la fiiriyaa duruufta meesha taalo duruufta meesha taalana waxay tahay dadkaas waa dad tuuga awoodna way sheeganaya sharciga gacantooda ayuu ku jira aabbihi waa daacad waan ogahay laakiin waxaan u diidanahay inay dhibaato soo gaarto anigana aqli ayaan isticmaalay sidaas ayaan oo aamusay marka ma fahantay aniga aabbihi aad ayaan uga naxaya yaaqib mid kale iska jeclaa oo la baxsano
waaba ii fiicnaan leed haddii aan helayo nin aan ogoleen korkayga in la taabto oo geesi ah laakiin waxaan aaminsanahay maalin maalmaha ka mid ah inaan helayo nin sidaas u fiican oo i jecel aniga aana ogoleen aniga in xaggayga loo soo dhaqaaqo gabdho akhbaar fiican ay dhihaaya xalfad ma iskoolka jirto maya wiil cusub aa iskool kusoo biiri wiil cusub ah wiil cusub wiil cusub wiil cusub aryaa wiil cusub aa kusoo biiri iskuulka wiil cusub waryaa gabdha waxay ii sheegaan see loogu ogolaan karaa gabdha iskool dhigtaan nin isku soo biiro nin meesha intigaan aan joogo mamnuucay ka tahay adiga nin ma tiid miyaa macalin aniga nin waan ahay laakiin nimanka waxaan dheerahay nimankoodan ahay nin kale nas meeshaan imaadan aniga raali ma kana qaahay marba ininka anaa idin leh ininkana anaa ileedihiin oo kaale hadda waaba diidantiinniya naag walbaan gabadh inaan ka qabo waryaa hoy doora diikheed ma moogo doorahin diikheed ma moogo damac le qaadaa dalkamaa ka tegaysaa dama eegi ma dawooshen waryaa hoy idinkaad i ahaleed maxaa dhihi leedahay ninkaas iisheeg baadaan ku weydiiyoyaay iisheeg adaan ku weydiisay yeele aniga haddii ahaan lahaa si fiican ayaan hab u siin lahaa oo macalin waa ku baryaynaa naag nin la'aan ma noolaa karta naga daano adiga iimaanka allaniga siiwo naag nin laang madoola karta yaa ku yidhi anii tan waaba ka sibe meeshaa markay ka baxdo shaxaday magaalada u tagtaa laakiin anii shaxaadkaasaan ka hor joogsaa nin maarkays waryaana calaqabtooshin yaaliyow waalidiintiina meeshaan waxbarashaan igu soo dira nima inaa soo dhaweysay maa nin haddii la soo dhaweeyay aan lali soo dhaweeya nin kale maba soo gelaayo meeshaan soo baxa lamaantiina macalin maxaa dhagaa gashanoosaana adiga khaylidiisaan diidooya waad ku qurux badan tahay macalin waa liigu dhaliyaan ku dhahay soo baxa kan nin ma ogol iimaanka alla ka qaaday gudoomiye kusey 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 dooni mayno maxaa la qaylinaysaana maxaa la qaylinaysaa maxaa la yidhahdaa koolejkaan anile ninkee war sharciga hore waa la bedelay sharci cusub ayaa koolejka loo sameeyey miska qaylinaysaa adiga ma waalan tahay mawaalni waxaa ii waxaysaa maamulaha naftirkeed maamulaha naftirkeed maamulaha naftirkeed maxaa ku daarin ood la qaylinaysaa maxaa ku daarin ood la qaylinaysaa ay leedahay meeshaan ninaa imaaday nin sas ku soo geli karaa nin aan ani ahayn xasan jilico muu ogola idinkana waa imaayaysi dadkaanagaan soo wati muujada anigay taageeri i yihiin ballan waayaan ku dhahay waayahay adiga dadkan kugu raacsan dadka waa igu raacsan yihin exusdana igu raacsan shaqaalaha iyo madaxda dhan ay raacsan yihin aniga gadaasheeda fiiri haloo jooga muujadid miya aawa hadda waxaad aabiya gadaasheeda mala jooga miya ya malisiibta keligiiha maamula raalla ahaw gabdhahan waxay dheheen waa kula jirnaa nin marabno adle nin noo hadda markii meeshaan imaadina waa ii kala baxeen waa ujeeda dhib ma lahan adiga waxa wanaagsan amarka maamulka uu soo bixiyey inaad diyaar u ahaato kursi walba oo kollejka ku yaala wiilasha in konta kuraas looga gooyo ayaa lagu talagalay marka sidaa daraaddeed haddii aad dood ka qabto adigoon banaanbax sameynno carruurta soo shirin waxaa rabaa maamulka inaad u tagto laakiin waxaa kasii wanaagsan inaad iska dhaafto maamulka hadalkiisa runtaa waay bes iga raalli noqon ku dheh anaa gefi mooho khudbadayda leen ku ekaha naagahana niman haddii u baahan yihin anaanba ku daraa raalli ahaaw gabdha adinka waxaad rabtiin wiilasha cusub inaad la kulantiin soo sax maahana laakiin aniga ayaa ninkaga hormarayo midaaba teleefonkiisa gacanta iga saaray okay tartiib ya qays aniga ayaa nin xalinayo sawiradoodoo dhanna halkan ayay ku jiraan emailka 300 waaye website-kana 600 waaye yaa haddaba ogaada iska soo tuura lacagta maxaa meesha ka dhacayana oh horta ninkan araggiisa ma xuma sida shukulaatadii kale aad ayuu u macaan yahay qorshaha uu kollejka u yimid waa laba nooc inaan annaga ku dheelno ama inuu asaga nagu dheelo aniga gabdhaha yara istrukeeyan waxba muxuma laakiin naagtan ay fareeja la dhahayo da'muu dhigta dugo dhiman bis igaarkeed camal waay waa istrukeeyoosa iimaanka ilaahay ka siiyey subax wanaagsan macalin subax wanaagsan macalin war adduunye gabdoon inas yahay 7 jir waaye wiilaa imaadiyay maqashay rooseetay afka marsoohaysaa bilcaanta birkood mashiixaayaan
mudana waa ku salaamay الدنيا بدون كان أركع نينا إمادي لا مخلي عجريدنا لسوق كابي إيمانك الله كسير كوانا mudanaha maxaa daaray waaw wiil farta ka xiran ayaa yimid kolleejka akshigiisa xataa waa khatar gabar kolleejka dhigita ayuu rabaa ayaan u malaynayaa soo baxay keenaya sawirkana la tusay iyo qaab ahaantiisa hadda ayuuba qurux badan yahay caadi maaha ninkan maxaad i tirin saaxiib maya waxba ma ahana eena bixin ninkan okay macalin jeki gabdhahan oo dhan ma anigu keliya isa socdaan mar macalin jeekay haddii itiri macalinkaagan gabdhaha waa kaabile ani laakiin keligay ahay gabdhaha ma la hadli aqaano waan ka baqayaa markaan hor istaago waxaa la rabaa kalsooni isgili macalin jeekaya kuu duceey waay maxaa sameeya macalin ii sheeg waa qaabileehaan ku dhahay kalsooni buuxdaan ku siiyey waa duceysa waa mahadsantahay macalin aad baad mahadsan mahadsanidin gabdho magacii waa kaarti krishna kaarti krishna kusoo dhawo kolleejkeena mahadsanidin maanta maalinta jacaylka miyaa ubax ayaad gacanta ku wadaaye aragtida koowaad maxabo ayaad nagu reday maxabada waxaa loogu talagalay dumarka haddii soo dhaweyn laga helayo waa wax wanaagsan anigana waan ku faraxsanahay iga guddoon mahadsanid dherarkaadana miisaankaaga 75 kiilo kalarka jecesha balaaga gabdhaha qurxoon ubax waan u badiyaa gabdhaha noocee jeceshaan kuwa fashionka gabdhaha fashionka nooceed ka heshaan adiga manoo sheegi kartaa kuwa da'deeda gabar saxiib ma leedahay maya saxab ayaan leeyahay jaceylna maya gabar aad ka hesho ma jirtaan maya haddaad heli weysan haddii aan heli waayo nolosha ayaan isdhaafinaa waa balan nolosha aan nooga sheekaysay kulankaaga aad ayaa ugu faraxsanahay waan ku salaamay waan kaa qaaday anigu waan ku aqaanaa ma og tahay anigu sidoo kale waan ku aqaanaa laakiin sidee gabar magaalada degan aniga aan aqoon u lahayn wayba yar tahay aniga markii uu samaa faraa xidhnaa ayaan laamiga kuga arkay sharciga waad dhowrtaa adiga aniga sawir ayaan kaa qaaday kadibna facebooka ayaan dhigay waad mahadsan tahay laakiin hal midaan raba inaan kuu sheego wiilka adigu guursanaba ma aha mid kuu qalma dadkoo dhan sidaas ayay dhahaan maxaa dhacay ma iska dhaartid maxaa sameeyahay duruuf ayaa jirto inaan ogolaado waan ku qasbanaa mana diidi kari haddii ogolaado waa dhib haddaan diidana wayba ka sii daran tahay dhib malaha magacii waa kaarti krishna waxa kale kugu taga fiirahan mahadsanid adigaa mudan kulanka koowaad ayaabad hadalkaada igu qancisay aadaad u mahadsan tahay sidoo kale mudane shil labaad ayaa magaalada ka dhacay maalin cad ayaa dadka la dilaya xayawaanimada way ballaaratay maxaa kale keeshii walaalkiisa ayaa ka dambeeya adi ma caddayn kartaa gaashaan laatay ad maxaa wax ugu qaweysa ii sheegbe war dhegeysta hadal meeshaan looma baahna warbixintan dadka idin soo siiyey hal qof markhaati ha ii keenano waxaa idin tusaa wiil iyo walaalkiisa inaan xabsiga gudaha u dhigo haye yaa maanta xiso ma jirto maa tiri sawirkii wees xisad seerabtiin idinka seewa waa igu joogjoogsoosiin madaxayga istaagoosin be macarabtiin kaartii kabadhi ayuu dheelaya yaa asxaabi aqayna keena soo baxa ka kaartig maa kabadhi ii dheeloy haddana maanta jag iga dhaha oo kaali karejo muhiimay eed san in loo dhedheelo haa laakiinse anigii adiga kuma jirna dheeshaan ogow ya yaa macalin jeki ciyaartaan ciyaar rabo dhibaata ma iga imaataa ila keligii ayaa rag ka ah halkan dhib male aboo miixa waad mahadsantahay diiq kaligiisa doora dhex ordaayo deb waa ku dhacaa nasiibkiisa isqabaa beella waaye be haddiiba gabdhihii nimanka ay wareeriyooyin dhulkane wab ay ku sii ku joojoogsooyin aniga waa fofooriya aan ku yidhi waa fofooriya
waan ku salaamay waan kaa qaaday kaliya maxaa halkan ku fariisiyey aniga hal dhib ayaa haysto dhibkaas ayaan inta la fadhiya sidaas darteed waan fakirayaa hadda marka ii sheeg waayahay walaalkaarti iyo asxaabtiisa aniga markaan gurigayga aadayo iyo markaan ka soo baxayaba iyaga ayaa i daba socdo teeda kale haddii aniga qof jidka socdo ila hadla xataa qofkaaseeti si xun ayay u garaacayaan dhibaatadaas ayaa aniga i haysta dadkaaseeti dad ay dhaafayaan ma lahan inaan meel aada xataa way ii uriyaan aniga cidna lamaba hadli karaba sida darteed iyaga ayaan uga cabsanayaa hay macalin jiki welwelka dhaafgalaan ku dhahay dadka اوكي ادي مفسحينه هدران قلا قرتان ادغيسو هل مالين كليه دulqaado ay guri macalin jiki hawshan waxay ka dambayso way ku dhamaanaysaa qol free ay noqonaysaa waa ku bariya kaarti kaftanka naga dhaafno waryaa wadada noo baneey warqad socda adiga istaag ayaan ku dhahay ولا لوك سلامي ولا الكيجيرا وان كاقاضي noloshayda laba qof ayaan jeclaaday waa adiga iyo adeerkay adinka dartiina si aad farxad u yeeshaan wax walba waan u samayn karaa laakiin adiga waxaan rabaa magaalada ka baashaal aqligaadana waa isticmaashaa war adiga intaad nooshahay walaalkaad magaaladan waa ku raaxaysanaa uma jeed siduu faraxsan jecel ayaa galay runta waa dhib ma lahan asigale hal mar ha guursado jacaylka inta afku hayn waxaa laga yaabaa in uu burburo taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso maxaa idinku dhacay aniga gabarta kaashaala ayaa idin dirwujigiin muxuu sidaa u yahay dhaawacan ayaa idin soo gaarsiiyey wardee haddii nala ogaado unukoo dhan waa noloda la abaan ku leenahay war maxay tahay dhaawac wejigiina ku yaala ii sheega bal yaa idin geystay kan dartiisayna u dhacday kan dartiisa ah jidka markaa soconin nin islaameesna u daadaansada beerkaana laga soo tuma galey camalan oo laxan jiriyey dooli haddii aad gambareel qoorta u gelisaan oo mukulaal aad u dirtaan mukulaasha ii deedo waay aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso hay gabdho maxaad ugu halkaan u fadhisiin waxaad ogtihiin dad baashaalayo kale oo buug jecel akhrisanayo walaalkeeshu ayaa walaalfishu soo wacay waa ku salaam maanta aniga dib ayaan kugu soo laabtay runtii nafsadeeda adiga ayaa badbaadiyey maanta haddaan noolahayna adiga dartaada ayaa u noolahay marka waxaan kuu sheegaya maanta inaan kuu soo socdo waana kuu imaanaya aad iyo aadaana kuu waxaysa mar dhow isug
ma intaasoo keliya dhibaatada ma ninkii adiga ku guursan lahay miyaad ka baqaysaa kale yaa aniga nin tuuga miyaan guursadaa nafsadeedaba kuma aaminayo ninkaas maanta hadduu tuugaya waxaa laga yaabaa marka uu ku guursado inuu iska daayo oo nin fiican u noqdo bal ka war marka kaale aniga maad rabtaa inaan ninkaas nin fiican ka dhigane nafsadeeda qofkaa rabta ma dooran karo qof walba dooq ayuu leeyahay balse dooqiisa maahan miduu helaayo waxaa laga yaabaa qofka qofusan rabin inuu helo aniga cabsi darteed haddii aan u ogolaano waxay kula tahay nafteeda inay ku farxsan tahay ninkaas aniga ma rabo maxaad udiidaysaa nolol heer sare ay ku noolaan lahayd war nolol heer sare ma rabo aniga nolol farxad le ayaan rabaa aan ku noolaado rii habeen iyo runtaba midna lama qariyo dadkan hortooda ka caddeey aniga inaan ku jeclahay adigana aad i jeceshaa middaas inaad ku nabadgeshay ayaa laga yaabaa ogow fashali xageed ii wadaa adig ii sheeg fashali xageed ii wadaa fashali isdejad xageed ii wadaa ii sheeg ilaada loo adig halow idhageys dadyow dhammaantiin isku imaada waxaan rabaa dhegihina inaad amaahaysaan aniga waad taqaanaa magacaygu waa fishaali waxaanay dhalay gaashaanlaha gobolkaneeti waad ogtiin aniga waxaa laysiiyey keeshow adigana waad wada ogtiin aniga keeshow ma jecli waxaan u ogolaaday daruuf jirta awgeed laakiin aniga waxaan jeclahay kaartig aniga awal awood aan uga hortago ma haysan laakiin hadda waan haystaa kaartig aniga waan ku jeclahay waxaan rabaa inaan kula noolaado adiga ama ogolow ama ha ogolaan nafsadeyda adiga ayay ku rabtaa aad ayaan kuu jeclahay kaartig aniga waan ku jeclahay mana kaa dabaara nafsadeyda adigoo keliya ayay kuu baahan tahay kaartig go'aankana gacantaada ayuu ku jiraa kaartig كان walaalkaa ku wacay war ma jecli mana u tagay u sheeg asaga jeclaa ama jeclaa ninkaas waxaas ma qoreen hay arinta maxaan ka dhahay ishak maxaan ka dhahaa maxaa la dhahaa waa galaysaa bak iyo xawada ka dhawey gabar diidan in la kaxeeyo haddii aad idinka xog ku kaxistaan waa calaamada ay durcada leeyihiin amaba lagu yaqaano war adiga yaa tahay magacaygu waa kaarti krishna labalabada aawadiin maahan midaan qaadanaya aniga hey annaga aqoon ma noo leedahay aqoon iska daaya aniga si fiican ayaa idin qaanaa balse ka waran gabar haddii wiil ay tiraado waan ku jeclahay wiilkaas hortiisa haddii aad ku kaxistaan wiilkaas maxay ka aaminaysaa inuu doqon yahay aniga waan ku qasbanahay marka kartideeda inaan idin tusiyo gabadhan inaan jeclahay wax yar kaadiya fishaali dhegeyso jecelkaaga yuusan noqon mid aad ninkaas aniga igu reebaysid jecelkaaga ha noqdo midaad ku guulaystee run ahaantii markaad jecelkaaga ii sheegato anigana aad ayaan kaaga helay waana ku jeclaa fishaali fishaali jecelkaaga intuu ila jiro lagama yaabo aniga inaan guuldaraysto hey kan waa kii ina garaacay qof weyn wadkiisa wuu yaqaana haddii aan wejigiisa soo xirta hataa aqoon ayaad ii leedahay sooma imaba ilaabin وريا كلش كان قبل مساكين يا دكتور بس حقولي لا عقد دغو لكن والله منك واكاسا نفس الكلام بدنا ها waaye ani adiga saaxiib baan nahay halka maxaa ka qabanaysaa ninka ragga looma baahna naagan rabin inuu guursado ee waxa loo baahan yahay qof asiga jecel inuu guursado haddii uu guursado qof aan jeclayn nolosheeda way baaba'day asigana sabab ah nolol fiican kama helaya gabadhaas noloshiisana way baaba'aysaa maalintaas markaan ku badbaadinayn waxaan u baahnaa dadka adiga ku dili lahaa cabsida aad ka qabto in aan kaa baabi'iyo waaba ku raadinaya inaan adiga ku arko waana ku arkay ogow gabadha aad u socoto inaan aniga jeclahay biyo ay ku siiso nafsadaada ay ku badbaadinaysa inuu jecel kugu gala adiga kaale فيشالين وحقيقة ما حد كلا داري وريا
waa ku baryaa haydinin ciyaar yar ayaan korsada waa ku baryaa walaal haydinin ciyaal yar maadaama aad sheegto waad iga badbaadaysaa adiga orodoo iska tag haye walaal bas waa ku barya aniga khaladka aan galay waa ka soo dhaqday mar kale ma u dhaqanayo gabadhaasna maba raboba walaalkaaga ma wuxuu ismoodin magaalkan inuu asiga keliya u taliyo mise wuxuu ismoodin limaxa magaalkan dadka qalad yar markay kaa galaan waad baabi'isaa idinkana qalad markaad gashaan waxaad u baahantay inay la casiiso maa mala socotaa adiga walaalkaaga masaakiinta dhibaatada aad u geysteen weliba waxay isugu jiraan carruur iyo ciroole dhibaatada u geysteen neef ma ugu bedeli kartaa adii sheeg markaas waad iga badbaadaysaa inta ka sugaysa lagama yaabo adiga inaad iga badbaado masaakiinta dhibaatada u geysteen neef waa inaad siisaan markaas kadib ayaad iga badbaadaysaa awaar degdegayna soo gaaray ayaa waxa ay sheegayaan ninka kaysibaay la yidhaahdo la la'yahay ilaa iyo hadartana ma lagu sheegin war waxaa ugu dambaysay markii ay dagaalayeen dhalinyaro badan asagoo ku dhex jira ayaa la yidhi in meeshaas lagu waayey wixii warbixin kalena anaga soo gudbi doonaa rowtiliye ninka kaysibaay shal dagaalka u geliya lagu la'yahay waa la'yahay halo gareesaa loo xiriir walaalkay orda ii soo dejiye maxaa u taagantii walaalkay ii soo dejiye socdo tartiib soo deji saarigaas ka furmin saariley kac maciidoosa yaa saarigan ku xiro saan ku galay ninka aniga markii hore nolosheeda badbaadiya ah maanta waa kana sidii dumarkoo kale igu lebisa saariyo iyo xore haloogaye waa ii dhamaatay sharafteeda waa u dhamaatay aga dhigo ninkan adinka dantiina dartiina leh wax muu samaynin anaka naftirkayna mustaqbalkayna evereska dhiga waryahoy anaka naftirkayna gareeskaas noo xiri inaan u xirnaa ballan ee waryaa kama dhaafeen caabi nimanka yaa bisaaleen حلم على حتى ولي الشيخ يا بسالم حلم على يا بسالم حلم على يا بسالم حلم على يا بسالم حلم على nolosheeda ku ciyaare reer biisaanleeyaanaa kaaga aaray ninkaas reer biisaanleeyaa la dhaafin ma ku xiri karo kawaaskiga dagaabasla ninkaas saariru ku haya asaga walaalkay aniga ma dhaafayo qofka sidaan u galay waa ballan inaan asagana garees u xiro siduu walaalkay ugu xiray oo kale ma daynayo kaas mana iga badbaadayo waxaan isdhahay isaga ayaa gudoogaya maantana waa kana horteeda ayuu ku dhintay aniga mar walba waxaan jeclaa meedkayga asiga inuu laakiin hadda waa kanaa meedkiisa ayaan gubaya aniga way dhamaatay karablaan ayaa igu dhacday maxaan sameeya aniga wiilkayga waa kanaa meeshaan ayuu maasa uga watay reer biisaale inaad soo dilno waxwadoodaa soo kiciyeyna ma dhaafeen dhowr mar ayaan kuu sheegay haddii adhadis war wanaagsan ku hadal aniga hadalkan hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso inta meedkan oo noo yaalo looma baahno wax dhaqdhaqaaqa inaan samayno dhib walbo anaga noola geystayna waa u dul qaadanaynaa aniga hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso kadib ayaan tallaabo sharci ah ka qaadaynaa inta laga gaarayena maan anaga wax dhaqdhaqaaqa in aan samayno ninka wiilkeena sidaan u barayna lagama yaabo in uu naga badbaado kow ayaan ka siinaynaa waan diraynaa halo walaal kumaa tahay adiga anigu waa neeb ah in la weydiin meeshaan ka imaaday iyo qofkaan ahay waxaad weydiin kartaa oo keliya sababtaan walaalkaaga sidaan u yeelay iyo asbaabta keentay midaasoo keliya ayaa loo baahanya inaad iga waraysato aniga saqajaannimada walaalkaaga sameynaya ee gabdhaha magaalada ka joogi waayeen
asiga waa duli adigna waad ka sii daran tahay hadda ka hor waxaa jiri jireen 200 walaalo midna mid kale khaladka ku gal mid kale wuxuu jiri wuu saxan yahay ilaa uu midka walaalkiis ka arko markaas ayuu aqoonsaday walaalkiis inuu qaldanaa marka adigna muu casayata warkaadu wuu weyn yahay wejigaaga hor keeni kartaa adiga midaas aabahay ayaa i baray aniga adiga waxaad iga badbaadaysaa mataqaanaa sida walaalkaa oo kale gabdhaha laamiyada kuma qasqashaadid haddii aad gabdhaha laamiyada ku qashaado waxaad ogaataa sida walaalkaa oo kale laamiga in aan ku dhigaayo mana iga badbaadaysid midaasna hore ayaan u ballan qaaday aniga halkan waxaan u imaaday libaxyada ismahadiyana inaan u dhammeeyo waxaad qalad gashay walaalkay korkiisa markii aad taabatay midaan haddeer waa borsamiindo filinka waa uu kuu dhimiyahay walaalkaa kaa yaraa ani waan u degay balse asiga wuu ifahmi waayay saas darteed qadka ayuu ka baxay adiga haddaad ifahmi weysan waxaad ogaataa inaad qadka ka baxaysid adiga hadal walbo afkaaga ku soo dhacay waad ku hadashay laakiin aniga hadalkayga si fiican waa inaad u dhegaysataa aniga ballanta aan qaaday sidaydaba waan oofiyaa waxaad ii sugtaa oo keliya walaalkay meedkiisa intaan ka soo asturaayo kadib dunida meel walbo adiga aad kaga dhuumato waxaan ahay qofkii kaa soo saari lahaa mana laga yaabo in aad sinna iiga badbaaddo adiga baasriyo okay haddii sidaas tahay waxaan raadinaa meelaan kaaga dhunto uu horan googlaha weydiinaaba googlaha haddaan ka helo meelaan kaaga dhunto way ii fiicanta waa kaa dhuumanayaan waan ka xumaa googlahane wuu isoo qaban laahe dhib ma laha ajensigaan tagaaya waxaan leeyahay tikid ii jara oo ninkaas aan kaga dhunto meel igeeyaan leeyahay inta ku sagaysana xafladiinna waad sii wadan kartaan qofka barnaamijyada noocan oo kale ku dhaqaaqa waa qof jecel ahaayo mideeda kaleeta adiga arday ayaa tahay maxay tahay sababta kugu kalaftikiisho inaad dishid aniga waxaan ku dhihi lahay barnaamijyadan faraha kala baxa mudana bilaash aad igu eedeynaysaa kiishu baaya asaga ayaa gacantiis ku dilay dilka noocaasoo kale maxkamadda waxay ku eedaysaa inuu ka dambeeyey qofka ku kallifay qofkaas gaashaal ma haddaad hurdada ka soo toostay markii asiga ay walaalkiisa magaalada ay qasaayeen gabdhahan ay kursanayeen waayelada ay dilayeen adig xaggeed ku nooleed ma hurdaysa xilligaas ii sheeg waxaan malaynaya haddaa soo nabdaaday marka hadda adiga amar diidda miyaad samaynaysaa madaxda dalka iyo mas-uuliyiinta haddii ay wax ka qaban waayeen dhibaatada lagu hayo shacabka marka ma diidantaha anigoo kale inaan dhalanayo oo waxna u qabanaya masaakiinta iyo shacabka weliba dad ayaan abaabulayaa oo weliba sideedoo kale ah masaakiinta iyo shacabka iyo waddankooda wax u qabanayo فيديو كبرية استاك فيديو هيدي لو كبرية أنا كي أنا كلا لما كفتر استاك فيديو كين أما كيناي فيديو سي أما كسينا فيديو يا أخي فيديو أنا إدامية كم كي جاي أمريكا جرو بين أي شيء جيسا والله والله يا تادي أي نو فيديو فيديو ما يا فيديو وكبريا جودا ودور سفله وكبريا إيه أقولونه أوكي هذا يا نجادي لا قبل جعشان مريكن كأي كناشان ورناجن دي بدي جرو مو واحد أم لسه رجع إلى قيميان بين أي وشيغان لكن بين لها نقطه أنا جا أي دبتين واحد هاي ينصو سارايا أنا قبلنا يرانتين أيان اسمقيني قبلنا قرصنا هديتها خوفك أولى أو الشغلة وأذيك لكن مسج كان قفك صقر أخبط ولا إلى أوجات أذيك dib ma u wacda adreeskeeda ma ogaatana adreeskeeda muxuu yahay ani ma aqaan meel ay degan tahay midda kale guri ay soo bandhigtay ani ma ogolada ma bilowday beenlow ma nagu cabaysaana naga tag taleefanka haddii uu ka maqan yahay kaartig waxaan u malaynayaa inuu caajisay adig ma caajisana abaan ku baryaa ii aamin haddii aan ogaada gabadhaas waxay tahay oy gurigeen diyaar u noqoto qofta uuraysa anu sheegaya waa adiga ii aamin oo ku baryaa ii ogoloo taleefanka inaa isiis adigin balan waayo bal ii waran adiga ma israacsiisana haya qalbigaaga maxaa ku jira ii sheeg qalbigii adigoo keliya ku jiro adigna qaatigan kaa taagana cid kale ma tabar u haayaabani haddaad anigii jeclaatid waa balan cimrigaaga inta ka dhiman farxad ayaad ku dhammaysanaysaa fiidyaa adiga kaarta miyaad jeceshahana hooyaday aabbahay anigoo yar ayay geeriyoodeen kadibna adeerkay ayaa isoo korsaday kaartina weligiis ima dareensiin inaan cidlo ahay laakiin shalay markuu wax walba ii sheegay ayaan ogaaday aniga inaan jecelahay weliba si xad dhaaf ah qalbigaygana oo boos weyn ku leeyahay jaceylka inuu wax jira yahay qofkan ay wax jeclaan karto waxaan ku ogaaday
kaarti markuu noloshayda ku soo biiray markaas ayaan wax walba ogaaday aniga indhahana way i kala furmeen bravo عليك waan ku faraxsanahay maadaama gabadhayda ay wiil jeclaatay taasna waxay caddaynaysaa in nolosha ay qof la wadaagi rabto waan ku faraxsanahay gabadhayda dhegayso 4 beri kadib waa dhalashadaada markaas ayaan kaga faa'iidaysanaynaa oo wiilka runta loo sheegaya okay soo maaha maya aniga ma rabo arrimahayga kaarti in loo sheego waxaan rabaa aniga afkayga wax walba inaan uga sheegto buuggaana waa buuggii hooyaday xasuusteeda aniga wax walba waan jeclahay iyo hooyaday wax walba ay jecleed halkan ayay ku qoran yihiin mideeda kale aabbee iyo hooyaday meeshay isku guursadeen ayay waxay rajadeedu ahayd aniga inaan tago markaas kadibna anin ku guursado sur ayaan aadaya kaartina meeshaas ayaan jaceylkayga ugu sheeganaya aniga waan kugu raacsanahay ra'yigaaga gabadhayda meekab wixii shir aan leeyahay dhan jooji gabadhayda ayaan hindi u wadayaa sidee kaa noqotay ani markaan ciyaal mihi waxaan ahay qof weyn waana ismaarayn karaadeen kaarta ayaan soo afduubaya kadibna waan soo noqonayaa sabee lama hana soo afduuba aras ma jiro aras ma jiro sanaamiya soo socda yaaqi soo socda ka istaag meesha adi sidee maraykanka waaba ka tegaynaa meesha surweela ka hadlaysaa sunaami ayaa meeshaan kusoo socda sunaami sidee tahay ay saaxib ay sidee tahay adigan gudahana soo geliyaya soo baxnaysa kaala sunaami la buugday sulaalka maxaa ugu soo carartane sunaami ag soo rortaniya vidya waad ogtahay kaftaga noocan oo kale inaan ka xanaaqanayo runtii hadda ma xanaaqdana adiga katig fidya walaasheeda waa fidya walaasheedana aniga ayaa qaba haddana waxaan nahay famil booyo adiga inaa kaftaga xanaaqda ma ahan yaaqi iska dhaafa xanaaqee meesha hadduu jiifalaa ka waran sunaamiga ka kor imaan lahay saacadda kor imaan lahayna بس ما قدها يا اخي سوي سي هاي هاي اوكي ما هو هاي حرشي على طول هاي مع حرشي ما هاي محكو دعي محل فكر السولان ما الى هذا الشيء ابا ولا لا ما كاينش قفتها مكو قنعسي مكو وعي شيك هاي يقوع وريا هوي يري كالي حاجرة يها عاو معناه ابو مدح الذهب خوت الذهب علوش الذهب قعمات الذهب كل هذا الامور الذهب وتايبه ان من دافتينا وايد تروغينا واي والله دافع لكن حرش مدح على طوره هدي مدح او كسودخ واسك بخسا حرش دو كسودخنا قفتا وانو تغيسا way faantii amaleena no kaartig farxad ayaad ku soo wateen ha u maleena farxadaas inuu idin dhameystira farxadaas oo idin ka burburina maxaa yeelay asxaabtiisa oo arkaya wala baashaalaya bawr wado iyo baashaalo iska gala adinka dhan maba idin soo jeesanayo waa tuuri waa kaas hadalkayga waa sax ya haye shilinkayga u baahnaa walaal xarashii madax waxba kama ogi dadkan baashaal kale iska haye saas bitaani ada wada ciyaareen sii shilinkayga isoo saar misaala saddex sawir ka taqriya kaale warsiga iyo siyo wariya jooga kaale adiga wariya fog aniga iqabtana warabi inaan wada ciyaarna adiga dhaxdeena maxaa ku soo geliyo ku barya sagooda ma og ku barya dibadda kama iska dhaafo ku barya wata koriya war aniga ciyaarta noocan oo kale waan soo ciyaar tinta ida aniga ayaa ciyaar fiican kula ciyaaray haye ani ma ila ciyaaraysaa aniga inaan la ciyaarta aniga bro laakiin waxaan ku sheegay sharaftaada aan ku taaban inaan ku ciyaari doon dadka hortooda wiliba inta afkii la soo galay ka fiirsta ayaa laga rabay maxaad iga qaadi kartaa adiga aniga waxa igu balan dadkan hortooda inaan sharafta kaaga qaado
waryaa qof walba mobil haysto waxaan rabaa inaa qoftaan ka tubtaan waxaan ku samaynaya aniga amarkayga waa ku barya walaalo waa ku barya war naga tag waa ku barya maxaa dhacay kaarti fiican igu sheeg waxa dhacay video laakiin waxaa loo baahanyahay 2 saacadood inaan wada waxaa laga yaabaa hal waqti inaan wada dhiman hadduu waqtigan mid noqdana nasiibkeena isku mid ayuu macnaa gaashaale magaalada aanu joogno waxaa ka dhaca mar walba dil dhac kufsi boob waxaas dhacay dhan waxaa u sababa keeshow iyo walaalkiisa iyagoo og in sharci uu ka jiro misle waxay aaminsan yihiin sharcigaba in uu jiibkooda ku jiro anigana midaas ka damqanaya ayaa keeshow waxaan u xiray garays si uu u ceyboobo waayo dhibaato walba beledkan ka dhaca asaga ayaa sabab ah iyo walaalkiisa waxaad adiga samaysay qalad iyo sax wixii ma sheegi karo balse waxaan kuu sheegaa libiskan annaga in noola siiyey in aan xabadaha tuugada ee soo gamaan shafka aan u dhigan oo aan dadka difaacno laakiin labadan nin dartooda sharafdhac ayaa noo soo gaartay marka waxaan kaa codsanayaa dadkan inaad layso wax walbaba anaa xalad ku dhiganayo gaashaale aniga midaas qalad ayaan u arkaa dadkaas oo kale haddii aan noqdo hub qaato magaaladan oo dhan wada qabuuro ayay wada noqonaysaa keliya waxaan kaa rabaa qaladkaan galay in qaartiisa in aan maro diyaar ayaan u ahay wax adigu aa qodo sharcigina kama weynin wax adigu aa martana waan qaadanayaa aniga ma laga yaaba nin daacada adigoo kale inaan xidho sharcigana dembi ka geli maayo iska baxa halkan maxaad igu yeertay war saaxiibtaa sidaad iga dhigta aniga dhan shoobin la-aan noqdo hadda shoobinaan rabaa miiraaxaysaane haana keen nama waalata maxaa kugu dhacay war aniga ma waalane keesho si uga arsata darteed sababtaad aniga ii isticmaasha ii sheeg midaas ayaa rabaa inaan ogaado war waan ku dilayaa ma ku cafinaya toosii dillo war adiga waxba dheer u malay aniga hooyaday aabahay intaa ka dida ayaan iskuulkiis kaga jooga adiga darta ayaan u jooga adigana waad ii qiyaantay ii sheeg sababtaad ii qiyaamaysa aniga fidiya baalan oo kale isku wale aniga kadib ay dil war wajixmada maarta fidiya baalan inay kugu soo kor istaagsa maxaa ka qaldan adiga war maxaa kaa qaldana dilaada miya aniga gurigeena markaan ka soo baxay qudha nin walba wuxuu hamiyaa gabadhan quruxda badan siduu ku heli lahaa adigana jacaylkayga ayaad qoorta ka goysay waa ii sheeg aniga markaan halkaan imaanahay qorshe ayaan u imaaday laakiin waa xaqiiqa jacaylkaan aniga kuu qaad markaan ku arkay waa mid dhaba qof burcad ah misle gabar bii saymaysa markaan isku dhufto waxaan ogaaday inaad tahay gabadhii riyada qof qorshe u socday qofku warba markuu arko wuu isku dhiibaa anigana adiga ayaan iskaga dhiibay hortaada naag ma jeclaano guriga waan ku keena dekay inaan degmabeygiina iska waran dhib ma laha marba gabadhan dunida ugu jeclaa haddii ay go'aansatay in ay lamaano samaysato aniga run ahaantii wax dhibaan u arka malaha aad ayaan ugu faraxsanahay wiilkan wuxuu la yaaban yahay aabbiyo halka taagan oo saan u hadlaya laakiin aniga waxaan hooyo reer magaal ah gabadhayda waxay jeceshaanana waan la jeclahay marka gabadhayda adiga oo keliya ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi kara gabadhayda adigaa iska leh waryaada ninkaas waa in aad raadisaan magaaladoo dhanna
cabsi inuu bannaanka uga soo baxa ayaan rabaa markuu soo baxane aniga ayaa ugaarsanaayo igama badbaadaayo taasi mid macquul noqonaysa maahan dadka mas-uulkuna nagama cabsanayaan cabsidooda way ka guurtay qof laga gabanaya ma leh annagaaba qalqiil ku jirnaa markaanaan ku dhahay dadka dhamma nala shaqaynooyin hal habeen ayuu atoor ku noqday asaga walaan halkome hoos soo deg wax adag dheh walaal ganesh mar hore ayaan dhaweeyey kaale soo dhawow soo fariis see kaa noqotay gurigeena maa nagu soo dhaweynaysaa ninkan waxaan rabaa raashinka ugu qatarsan gurigeena in loo keeno sidaa maxaad igu fiirinaysaa waa aniga cadowgaaga walaalkaaga markaan u dhameeyey waxaan umalaynaya hawsha inay dhammaatay balse adiga markaan cagajgelintaada maqlay waxaan ogaaday hawsheeda inay qabiyad tahay sidaas ayaan gurigaa u imaaday qaladka aad iga gelaysa adiga ilaa hadda ma ogid waad aragtay walaalkaaga foolxumadaan u dilay isla sidaas ayaan ku dilaya haddiad afkaad xiri weyso hadhown waxaa la wey doonaa qof adiga meydkaaga gubo amaba duuga carruur iyo cidhoolna adiga ay kugu cayaaraan sidaad ugu cayaarta ay kugu cayaarayaan midaasaa iloobin aniga waxaan maqlay inaad ibaadi goobayso misna aad i raadinayso waxaad ilowsan tahay hal telefoon oo keliya haddii aad isoo dirreed aniga fadhigaa kuga imaan lahaa xitaa kafeeyaad cabayso free aan kaaga dhigi lahaa lacag kaama qaadi lahayn aniga calaajabag ayay noqolayd midda gabadhan ayaa kuu soo hartay waa indhahayga nuurkooda balana waxay ku qaaday nolosheeda inay ila qaybsato balanta ilaa ka oofin halkan ay joogaysaa wiilkayga adiga mid tahay iloobin libaax inta uu ka fog yahay ayay fiirsada ku fiican tahay mar hadduu hoosta ka soo galo waxaad ogataa libaaxaas in uu ku cunaayo aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusayso waa run laakiin waxaa ka sii daran ninkii libaax inta u tagay madaxa ka salaaxa kadibna qoorta ka gooyey hadalkaaga ayaa hadda wadda igu furantay aniga midaasna ogow ayaan ku dhahay inaad heshiis rabto maxaad igu sheegi weyse waa wiil balaayo iska dhigaayo waxaad ogaataa qofkii balaayo ku cayaara balaayada inay ku cayaarayso aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusayso qofkii bisada iyo qofkii libaaxa taariikhda ayaa xusayso marka wakhtigeeda la gaaro walaal waddada muu galnaa muu dhammaynaa inta tacsida oo halkii ka dhammaanayso gacan yaa loo qaadin soo niima dhihi anaga maa gacan qaadin dad ayaan u dayana ku dhahay walaal ninkan kalsoonida guriga ku soo gala ayaan la baqayaa aniga maxaa yeelay ninkan waa nin khatar ah lugahaaga hoostooda ka soc ayaan ku dhihi lahay isku badnaa walaal saaxib meesha mar walba ay farxad noocan oo kale ka dhacda joog waa inaad noo badishaa yakh middan waa caadaysana mid kale ka cusub noo keen middan waa naanige mid macaan badan oo soo saar haddii aad hoostahaye jabiga bedel wuxuu ka wadaa mataqaanaa wuxuu rabaa anaga jabigeena in uu bedelo laakiin annaga midaas kama yeelayno annaga jabigeena intaysan bedelin ka hor ayaan jabigiisa bedelaynaa asaga aniga ma dhihin waryahay nimankiina haddii ogoshiin aniga inaan hadlo waa hadlaa raalli aan ka indhaka jawigayga in la bedel diyaar aanu ahay laakiin waa inaad marka hore jawigiina aad bedeshaan goobtan waa inaad keentaan naago qurux badan haddii aad rag keentaan sidii warqadii oo kale ayaan u jeexayaa aniga ragga xaggaygana waxba kama ahan tolkaa tahay ii soo duceeya idin iri dhammaantiin caabi gabdhaahoy quraxmaashin चखने दे टेस्ट तेरा और सुनिए
चांदी से मैं तुझको सवारूं काटी नाक बड़ी आइटम मैं भी सोनी काटी नाक बड़ी आइटम मैं भी सोनी स्वर्ग दिखा तेरा हुस्ने अंदाज तेरी जवानी है दारू का गिलास आ तुझको भी जाऊं आजा मेरे पास नाटी नाक बड़ी तेरा दूसरा सनी नाटी नाक बड़ी तेरा दूसरा सनी Makai, makai, chapa menya kuyamba ukumbe mampa ka uji sombe, chapa hi, ambile enya kuyamba hi, ukumbe mampa ka uji sombe, jamuro jambala jambalula nasraminana na hisa turrijana. ayl badana idageysa adiga waxaa la gaaray waqtigii wiilkeena anaga aan u aari lahayn qoorta ayaan ka soo gorinaa nakeen adiga kaartag ninkan anaga akhbaarta beenta waxa uu noogu soo diray waxa uu rabay ninka wiilkeena diray in uu halkan ka fakiyo laakiin anaga midaas kama yeelayno maantana waxaa ogaataa in aan kaartiga dilayna cid bini aadan oo naga celin karta mayrata ma jirto ماذا تقول محايتري معنيه ورياهوي دتك أو بوتيسك عبساني جميع الله أنكويري أنا عايزة وحن رلا وجهك وجهي أوكي ما بلا وين قدام براو ورياهوي بوتو واحدة ميسي دتك لك عبسايا ماني مكا عبسايا سكين ورياهوي أنا من عبسايا ميه دلا شيء ولا جوغا دود لي بحن كدنجيجا ورياهوي أنا مكولا دقالة ماي أذيك ننفع حاجة كولا دقالة معني وكاير يا كارتيك I do my thing, give a damn what they hate to say. I do my thing, give a damn what they hate to say. Don't fuck my girl, what's up with this? I do my thing, give a damn what they hate to say. adeer 13 maalmood ayaa aniga iscelcelinayay ugaarta aan gaadgaadayna horteyda ayay taagan tahay waa maalinta ugu dambaysay taasiida walaalka meesheed masaakiinta aad raashinka siilad ma waxaad halkan u timaaday inaad dagaal iyo fooda abaabusho 10 qofood oo adiga aad soo dirtay haddii ay feri ugu dhuftaan aniga midas waxba uma arka laakiin hal feri aan ku dhufto 10kooda haddii ciidda ka hoos mari waayaan aniga ayaa ku imaanaya gacantaada weliba sidaa doonta igu inqaab beelo waa nin rag aniga sidaan u hadlay haddii aad dagaal u imaaday yaad u xeeran tahay gacmo furan ku soo dhawow aniga hortaada ayaan taaganaa soo soco hadal badan han ma buuxsha ayaan ku dhahay aniga ayaa ku tusaay waxa aad tahay meeshan ayaana kugu jarjarayaa iska kay dhici ayaan ku dhahay cid kaloo kula dagaalamaysa malaha
adiga markaad walaalkay gacan u qaadaysay soo ma ogeen marka aniga gacanteyda aad soo gasho in aadan iga badbaadeen war dadkoo dhan haddii ay isku yimaadaan cid iga kaa badbaadin karta ma jirto ii kaana gabadh tan soo ma ahan gabadhii aad rabtay inaad guursato hortaada ayaan baasiin intaan ku bilbala dib qabadsiinayaa haddii aad iga badbaadin karto kaana basiinka ku shuba ayaan idhaa basiinka walaal ku shuba si fiican u daawo adigii iska daaya aabbaha xataa ma badbaadin kara ayaan ku soo istaag aniga anaa lagu siinaya walaal wax maa ku gaaray dhammaantood ii soo aruuriya soo socda war yaa soo socda haye wiil yahow markaan kaa diidayay dadkan arrimahooda inaad faraha la gasho sidan ayaan kuu diidayay maxaa yeelay waqti fiican ayaad akhbaartooda soo gaarsiisa mooye saacaddan way kuma bi'in lahaayeen hadda gacanteeda ayay soo galeen taariikhdan xusi doonta mar dhow ayaga way u dhammaatee gaashaanle bistoola soo qaadanaysa annagaan ugu kor jaranaysa waxaad ogaataa adigana taariikhda in ay wax kaa qorayso xaafadda awjeed annaga ayaa u tirinay yaa way cidda gacan noo qaadan karta car waa kaas annaga qof soo baxo gobolkan dadka degan niyadda ayagoo ka jaban ninkan ayaa u imaada kalgacayl buuxa ayuu siiyey asagana wuxuu mudanya kalgacaylkiisa in wanaag loogu bedelo akhbaar farxad leh ayaan idiin hayaa maxaa yeele ninkii magaalada qasi jiray maanta gacanteena ayuu ku jiraa sidaad doontaanna waad ka yeelan kartaan fasaxaad u tihiin qofkii dhibaato badan geystaa ogaada mar inay bulshada ku kacayaan oo qoortiisa ay qac ka yarsiinayaan hadeertaa maxaa samaynaynaa waan isguursanaynaa no waxgarad ayaa tahay guurka wax ka diyaarino okay markaan cunigaan dhalano